gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dambena cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbasiri dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waayay dabadeedna markaas arkay gabadhii oo yar muusoonaysa yar qoslaysa dabeed waxaan war gabadhii male waa mid reer magaalo ku caayi mayse iska yara faduuli ani faduusha keentay heesta uun baan doonayay inaan waxaase markaa dee kolley intaas garan mayse dee intaas waxaan kala yidhi subxaana man khalaqaki ayaa shayga cajiibka waxa uu ahaa inay gabadhii maaragtay way jawaabta celisay carabiga ku celisay waxay tihi shukran bay tihi shukran baladba geeraarkii aad 10 habeen akhriyeysay aad adigu aliftay baladba hel hirig qoladii daraawiishtaydii la socotay hoosta iga bujinaysaa intaa dee hay hadal halkaa kii cali dheere iyo kooxda inteedii kale oo xaggii jooga maqsinka yaraada halkaa igala hadlayo maxaa kugu dhacay wad wallaahi bay ka tahay waxaan qabaa hadraawi hadduu maanta doonayo inuu hargeysa iyo adduunyada waxyaalo dhan yeesho hadduu hargeysa oo kale maanta doonayo yeesho uu yeelan laakiin nin marad kama isagoo macawiis yar xidhan oo guri kale ku jira ayuu maxaan ku Allah naxariistay dhintay marka waxaan u qoray qofka imkaan la hadlaya ma beerula intii aan san oo dhan marka inta qoray ay waxay soo qofka caawl hadlaysa waa beerula halkaa wuxuu noo sheegayaa jacaylkan warba ka haynba inuu qof bini'aadam jacayl ku dili karayo heestaasi idin soo gaadhay muusigeedu waa heesta beledweyn oo uu sameeyey midhaheeda allaha u naxariistee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxay heestani ka mid ahayd heesaha taariikhda galay ee dhinaca soomaalida ugu caanbaxay haddaba waxa aanu barnaamijkan aanu ku eegi doonaa isla markaana ku falanqayn doonaa heestan qisadii ay ku timi ee allaha u naxariistee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi uu ku sameeyey allaha u naxariistee abwaanka oo jimcihii hore lagu aasay magaalada hargeysa haddaba heestan qisadii ay ku timi sidii uu abwaanku u sameeyey waxyaabihii ku dhaliyey iyo weliba waqtiga la sameeyey waxa aanu ka waraysan doonaa oo si guud noogu sharaxi doonaa ibraahim cali axmed oo isagu ah falanqeeye inta badan wax ka qora dhinaca sugaanta iyo heesaha ibraahim kusoo dhawow MMTV ugu horeyn abwaan hadraawi wax badan ayaa laga yidhi allaha u naxariiste oo laga sheegay taariikhdiisa maasooyinkiisa laga warramay haddii aynu si gaara isu dul taagno heesta beledweyn ee uu sameeyey allaha u naxariiste abwaan hadraawi bal waxaad si guud dadka ugu sharaxdaa bal qaabka qisada ay ku timi heestani iyo sida loo sameeyey iyo goobta lagu sameeyey waqtiga la sameeyey aad baad mahadsantahay Saleebaan waxaan kaaga mahadnaqayaa inaad igu soo casuunto barnaamijkan marka ugu horeysa waxaan jecelahay horta intaynaan heesta u gudagelin ama aynaan ka warramin in marka hore in yar oo ducaa iyo in yar oo aan ku sifayn karo abwaan hadraawi aan ka horeysiyo sheego ilaahu naxariisto abwaan hadraawi marka hore soo ducaynayaa maxaan ku dhahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maaragtay qabriga u nuuro uu waasiciyo kitaabkiisa mid ka siiyo hadraawi waxaan aad iyo aad wanaagsan waxaan ummadan dhaxal fara badan uga tagay Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ahaa nin ma garanaysaa noloshiisa u hore oo hibeeyey wuxuu ahaa abwaan aad iyo aad u weyn oo suugaantiisa iyo maaragtay murtidiisu ay dhaaftay xadadka oo ilaa xad aan ku qiyaasi karno Shakespeare oo kale inuu ahaa wuxuu ahaa nin hanti fara badan iyo weel badan oo mug weyn maxaan ku Allah naxariistay mujtamaciisa u weeleeyay oo dhigaal iyo dhigana uga tagay hadraawi isaga isugu filaa inuu sheego oo qoraal fara badan ayuu iska sameeyay oo qoraalka laftiisa haddana waxa laga sii sameyn karaa qoraalo fara badan oo kale hadeen ka eegna xagga diinta hadeen ka eegna xagga nolosha hadeen ka eegna xagga dhaqanka hadeen ka eegna xagga xorriyadda hadeen ka xagga geesinimada deeqsinimada hadraawi ilaahu naxariistee wuxuu nin aad iyo aad u fiican wuxuu nin maaragtay goba wuxuu nin aan materialism adduunyada dinimada aan kala hayn wuxuu aaminsanaa buu noolaa wuxuu aaminsanaa soo ka shaqeynaya uu dhintay waxaan qabaa hadraawi hadduu maanta doonayo inuu hargeysa iyo adduunyada waxyaalo dhan yeesho hadduu hargeysa oo kale maanta doonayo yeesho uu yeelan laakiin nin marad kama isagoo macawiis yar xidhan oo guri kale ku jira ayuu maxaan ku Allah naxariistay dhintay isagoo xor ayuu dhintay heestan horta isaga ka sheekeeyay heesta beledweyn heestan waxay ahayd hees ma garanaysaa dhaba oo isaga ku dhacday hadraawi wuxuu leeyahay suugaan aad u fiican waan sidaan kuu sheegay wuxuu leeyahay riwaayado ka duwan riwaayadihii dadka ay sameyn jireen oo maaragtay aragti fog iyo maxaan ku raadayay sheekooyin wanaagsan iyo xilli fiicanna ku soo beegmay isagu 1967 buu hadraawi cadan ka yimi 68 buu sameeyay riwaayadii warsa hadimo oo macallimiintu ay ka qayb riwaayadaas riwaayad aad u fiican bay ahayd maxaan ku raadayay haddana riwaayad kale isaga iyo ilka cabsan ee saxaabada sameeyeen riwaayadii aqoon iyo afgarada macallimiintu ay wada sameysay riwaayadii maxaan ku raadayay tusmeeyay tawaawac
riwaayadii kale la oran jiray maxaan ku idhahdaa booraan hadimo oo hibe maxamed iyo ay ku jireen marka heeso aad u wanaagsan oo uu lahaana tani ka mid bay tahay heesta hooyaba ka mid ah waa la yaadima hadiba ka mid ah heesta gabdhaha geeska ka mid ah ee uu qaado maxaan ku idhahdaa ninkii iftiin haan jiray sayid khalifa heestii maxaan ku idhahdaa axmed rabshi oo qaadi jiray fanaaniinta badan ay qaaday calaa xaal wuxuu ahaa qof abwaanimada marka heestan heesta beledweyne marka soo noqon dul istaagno mar waxaan uga faa'iideysanaynaa heesta dadku Soomaaliyeed aad bay u maqleen laakiin way yar tahay inta og heesta beledweyne qofka loo sameeyay okay qofka uu sidii doona qisadu waxa weeye hadraawi 1970 isaga iyo koox uu kamid ahaa macallimiina waxay geeyeen riwaayad wacyigelina magaalada beledweyne markay tageen wuxuu kala kulmay maalmaha kamida oo maalintii koowaad gabadhan aan ka sheekayn doono bariishka laqlaqata la yiraahdo oo gurigooda aad u dhawaa iyadoo gurigooda ka soo baxday una socotay suuqa si ay adeeg u samayso markii uu indhaha ku dhuftay ee uu quruxdeeda arkay uu aad u la yaabay aad u la yaabay quruxdeedii uu salaamay oo wuxuu la yaabay abuurteeda af carabi uu kula hadlo wuxuu yiri waxa xumaan ka nasahan maxaan ku idhahdaa yani Allah ku abuuray iyadoo shukr bay ku tiri adigu waa ku israacay gurigoodu waa guriga ugu sokeeya liqliqato waa sida uu tilmaamay guriga geedka weyn leh ganjeelka leh waa ka ay sarkayaan haddana waa kuwa sarkaya waa ka amba baxaya waa ka sheekeynaya dhulku sii maray muqdisho markuu tagay iyo heesta markuu sii marka heesta wuxuu ku sameeyay beledweyne lafteeda markay gabadhan sarkeen bay heestu ku dhalatay mise markuu xamar ku noqday meesha muqdisho markuu tagay taraagii uu sii galay isagoo seexan uu qoray heestan wuxuu dhibay Cabdikariin Jiir oo mulaxan weynaa 1970 dhammaadkiisa uu dhibay 73kii ay heestan soo baxday saddexdaas sanadood marxalado kala duwan bay heestan soo martay markii ugu horeysay wuxuu damcay Maxamed Axmed inuu dhiibo Maxamed Axmed markaa wuxuu yiri heestan way dheerto way ka cudur daartay Salaad Maxamed Darbina wuxuu isna ka cudur daartay Cabdikariin baa iga warramay Xasan Aadan markaa fanka ku cusub ayaa aad u jeclaystay heestan inuu ku soo caam baxo oo qabsaday markaa Cabdikariin Jiir wuxuu ku adigu lin dhalinyaro imka soo baxayaad fanaaniinta waaweyn baa xafida karo muujin kara heesta adigu ku dhagay sida Cabdikariin sheegay muddo dheer buu ma garanaysaa xafidayay wuxuu sheegay xataa Cabdikariin li xabeen Xasan Aadan u seexan intuu heesta xafidayay marka aan arkay inuu ku habooyo danaynayo ayaan fara uga qaaday okay marka heesta maxaa aan ka sheegi karnaa heesta waxaan ka sheegaynaa heesta waxay ka hadlaysaa sidoo arkay oo hor dhiciya beledweyne inanta magaaladiya bartu kula kulmay timaheeda waa ka sheegaya muuqaalkeeda waa ka sheegaya quruxdeeda waa ka sheegaya ilaa xab boqorad buu gaarsiinaya runtii aan gabadhan naqaano waxaan aad isu weydiiyaa ama uga fikiraa sida buu ku ogaaday waxa ay tusi kara hibada qofka bilaaadmiga ilaahay qofka uu geliyo inay aqoon la bartay ka weynta waxay tusi kara way hadraawi hibadiisu inay aad u sareysay qofka abwaankii inuu abriye wax ku tusi kara way marka gabadhani maxaan ku raadayay waa gabadh sida uu sheegay quruxda leh akhlaaq leh dadnimo leh gooba oo waxaan ka bartay maxaan ku raadayay ayaa itusaya wanaageeda hadraawi maxaa kamid ah marka fooyinka heesta ku jira ee uu ku tilmaamay wuxuu sheegayaa inay gabadh qurux badan tahay inay gabadh boqorada tahay wuxuu sheegayaa timaheeda wuxuu sheegayaa maxaan ku soo dhaweynteeda wuxuu sheegayaa isku kalsoonaanteeda wuxuu sheegayaa geesinimadeeda wuxuu sheegayaa maxaan ku markay sarkeen ballameen sida ugu suurtageli weeday iyo sidoo canaananayo dadkii ma garanaysaa soo taliya baasoo baan warmoogi mideedii ma been waxba ma ogin moogtay hadii ma fahanteen wuxuu jeclaan si joogo waxa laga yaabaa si joogo magaalada beledweyne shaqada hawshu siyaarka si baran lahaay waxa oo laba qof oo isku wanaagsan bay ahaan lahayn laakiin maxaan ku raadayay calafka ayaa kala geeyay oo shaqadii hawshu ma dhamaatay dibna isuma arag inay soo wada hadlaan mooyee intii dambe oo telefoon ay kula soo jirtay ilaa hadda way xasuusantay ilaa hadda way ogtahay waa tii soo qortay maqaalkii yaraaye aan kaga hadlay in maxaan ku raadayay maqaalkii yaraan Facebook story account-kayga aan kaga hadlay iyadoo iska hadlaysa oo ducaynaysa sidoo ugu duceeyay in Ilaahay ma garanaysa ugu naxariisto marka hadraawi Allah naxariistee heestan wuxuu u tiriyay gabadha magaceeda waxa la yiraahdaa Jawaahir Maxamed Faarax Jawaahir Maxamed Carabal okay ma kor beerlo ayaa heesta ku sheegay kale beerlo Ilaahayo balaayada haleer mar waxa uu qariyay magaceedu waa story intii uu arka joogay xataa mar waraan kama maqal ama markasta la wareysanayo magaceeda aad buu asturi jiray iyadoo isma sheegino qof aad u edeb badan oo aad u xishood badan oo aad u dhowrsoon way
marka imika maadaama Allah naxariista tahay uu dhintay beer lula hadii dadka aad la wadaagtid de kul aqoonna waad u leedahay xagee ku nooshahay maxay tahay iyadu shakhsiyadeed maxaa waxay digantay Göteborg Sweden caasimada labaad digantay qof aad wanaagsan weeye muddo dheer baan isnaqaanay waxaan aqaanay anoo u aqoon inay tahay beer lula si shakhsiyan isu naqaanay anoo beer lula u aqoon baan isnaqaanay marka habeenkan ogaaday inay tahay beer lula waxay habeen intaan la hadlay anagu muddo dheer hadlaynay ay ii sheegtay inay ka tagtay gurigii oo tagtay meel ku dhow oo maxaan ku raadayay TV ay ku soo qabanayso program markaasaan ku maxaa dhacay baan ku si aan ogaaday waxay marka waxay ii sheegtay waxay ku tiri kor hadii hadalaa arrintii ka sheekay anigana ciyaalkayga waxay igu yiraahdeen hooyo waad sheegi kartaa wax dhib ku jira ma jiro inaad dhinacaaga ka sheegtid marka way la ballameen oo maartay su'aalay weydiiyeen way la ballameen marka waa ku noqon doonaa bay tiri markiiba maskaxda waxa ku soo dhacday oo gashay qofkan la hadlaysa ma beer lula adu marka sheekadii qisadan waa haysay de sheekada waan hayay oo muddo way ogtay laakiin iyada taymaan garay marka waxaan u qoray qofka imkaan la hadlaya ma beer lula intii aan san oran marka inta qoray ay waxay soo qofka caaw la hadlaysa waa beer lula marka aad baan u qaslay markaas ay bilowday inay ii sheegto qofka runta ay tahay inay beer lula tahay dhowr jeer horena intii aan wada hadli jiray waxay igu tiri Hargeysa waan imanaya markaas aan ku jiray maxaa Hargeysa waxay igu jirtay soo hadraawi ma joogay wajid Hargeysa soo hadraawi joogay wajid calaa xaal Saleebano laba sano ka hor intaan corona dhicin waxa jeclaysay Hargeysa inay timaado aan iyada iyo Cabdikariin Jiir iyo Xasan si ay arintan uga waranto marka oo corona dhacay corona wadii Nairobi tagtay ciyarkii qaartigeen ay ku leedahay hanti iyo guryo imakana waxay ballan qaaday inay timaado Hargeysa hadii Allah awood leeyahay oo ay ka waranto wixii ay maaragtay halkan ay ku aragtay okay marka magaceeda beer lula uma dadku magaceeda iyo sawirkeeda waa kaan ku soo gudbiyay Jawaahir sababta ugu weyn ee inta badan ani u iloobay waxa weey sida ay heestu u sifeysay sida abwaanku uu sheegay iyo sida heestu looga shaqeeyay heestu waxa heshay farshaxan aad u fiican fanaan fiican mulaxan wanaagsan waa Cabdikariin Jiir musician aad u wanaagsan iyo sidii ugu wanaagsanayd oo looga fikiro aniga uu sheegay 3 sanadood inay ku qaadatay Cabdikariin wuxuu igu yiri markuu heesaas sameeyay qalcad ugu dareed waxay ku leedahay tabaarka maadaama meeshu jacayl ka hadlayo rabitaan iyo doonis ka hadlayo de habaarna laba soo laakiin duruufa keento wuxuu isagu magaranaysaa lahaa sidaas u dhacdo waa ninkii gaariga waday iyo ninkii magaranaysaa kooxda hogaamiye cala dheero ku sheegay wuxuu yiri Cabdikariin beeri maayo xumaato kawada bukoodo batroolka daas Soomaa gaarigu cashan raacayaan mid xulaad u leeyahay baxnaash yani muddo uu joogo gaarigu wuxuu yiri inta waxaan ka soo qaatay qalcadda Cabdikariin waxaan ka soo qaatay yiri maxaan ku habaarkii hooyinkay nagu habaar jireen ee aan lahayn de aan dhib ka lahayn habaar dib hooyada waxa laga inay nolosha hooyinka inkaarka ku dhacay lagu sii qaad Soomaa macna sidii codkaasan maaragtay ayaan u soo qaatay oo aan u asturay oo asluubay yiri marka insha Allah beer loo iman doontaa halkaas ay digantay waa hooyo aad wanaagsan xishoodkeedii iyo edebteedii iyo dhowrsanid waxa keentay inay dad kale ay iska sheegtaan si ay magac ugu helaan oo ay ku qabsadaan waxaan ku qabsashada waligeed soo jirtay marka imka markuu dhintaalan wax khasab ku noqotay inay sheegto way kar weeday in kastoo ka fiicnaan lahayd xilliga hore inay sheegto laakiin kulli de sidan ay normal ku qof kastoo bilaadmay si normal ku yahay xishoodkii faraha badnaa iyo dhowrsanidii marka hadda leedahay heestan uu abwaan ka sameeyay iyo shakhsiyadda aad ya markasta wax ka fikraa يا أشهد يعني لا هي أشهد ده قف كأبوان كوقف أمرهم إلا حد قف أهل وناكسن ومارت أخلاق ذي إدبتي ذي دورسين ذي الدين ذي قيم كذا وروح ذنا يد حل جا مركل لا إيجو يا مركل إما كمدير كده مثال ذكته صور كذا وأنا خوش أدير واحد كذا إلا حد مارت إني قروح ذي إني تي قروح وكذا قروح ذي جودها لو آدي وفي عينهن أنا أقول ذي واحد ما يشتكي برضه بقرة ذي نتمر خرطة خوش هذا قبل سومالي كون أسينا نشرين وقف قويانا له وقف أخلاق له وقف دين له وقف شرف له وقف دورسون حشوات ذن قويس أدونا سنكسو شيء ده أبي العسكري وهنشري بلوديني تبدل نروح شيء كسوق أطفال كل بوسيد سري شيء كتير بيدبي كل رتي أبي العسكري وها إحنا قانا ضدنا ده سلكيشي غير بلودينا إلا لأنه يذكرنا إياه سيان حتى هو قاضي يدري تمر كي شيء كتير ما كذا لا صار شو حيل فردي إنه غير بلودينا ما قاعدين كل بلودينا عبد الله مصطفى غير على لا مصطفى بيروح عنك يكون يسجل بقول كوبيل حين كي لقيه maxaan ku raabay dhabo waxaan jira Beledweyne waxaan reer Hargeysa waxaan ku horay urur ciidan ka dhisa kaashan la soo ku gaaray Somali Scout kii waxa
sidii afgaabo kale ama diiriyihinig ama suudi xasan oo kale ama cabdimalow oo kale ama maxaan ku haybalambad oo kale ama maxamed cali weerar oo kale Soomaali Scout Committee ku wareey urur ka sameeyay meeshaas waxa ilaa gaashaanla sare ku gaaray wuxuu noqday Parasaab wuxuu noqday maxaan ku raahdaa Maayer ninkaas inta ila soo hadashay isagoo la jooga ayaan ku waxa ila jooga maanta ninku garanayo oo reer beledweynaha asii wixii Cabdullaahi Muuse markaas isagoo la jawaahir ba ma fahanti waxyaabaha de proofinka marka iyagu tusaale ahaan markii ay abwaanku de magaalada tagay ee duruufta dib ka saartay ka kaxaysay ee tagay mar dambe wax de tusaale ahaan xiriir kale ma iyada wax yar ka bacdi waa la guursaday waqtiga wax yar ka bacdi waxa caruurteeda waxa tasawirka waan hayay ninkeeda iyo hadraawada sawiran aduu muddo ka bacdi waa la guursaday siday sheegtay wax lagu guursaday beledweyne halkaas ay maaragtay markii dawladda Muqdisho guurtay ninkeedu ganacsado ahaa hanti badan bay ku leeyihiin Muqdisho maxaan ku Allah naxariisto oo dhintay siday sheegtay caruurteedu marka ninka hadraawi Allah naxariistay sida ay heestiisu ina tusayso waxa ku dhacay jacayl aad u la yaab badan oo waliba la yaabka ka sii weyn yahay qofka uu ka hadlayo ee uu sheegayo sifaha iyo qaar ka sii wanaagsanba in aan ka bartay oo ay leedahay ilaahay raadana waxa laga yaabaa inoo timaado insha Allah hadayna dhiman way ballan qaaday oo sheero isku daysan ku sheegay laakiin qadarka ilaahay ayaan suurta gelin marka insha Allah heesahan waxa lagu tilmaamay in heesaha ugu dhaadheer ee Soomaalida ay yihiin bal hadii aad 3 iyo 2 tuduucaad bal in sharaxaad aad dadka ka siisid heesto bal qaabka u dhacayso lahamka sidii uu sameeyay wani Cabdikariim 3 sanadood ka shaqeynay Allah naxariistay waa custom music oo maana wala waxa weeye intaas oo saxophone baa la garaacaya intaas oo calorie baa la garaacaya intaas oo cornet waxa fiyaata la isku dhaaf ayaa la garaacaya waa kuwan la tumo kuwan sida loo tumo qaar waxa la note baa la waxa la yiraahdaa alta la yiraahdaa waa kan sidaas oo waxa laga yaabaa Ismaaciil Cabdigari iyo Cabdi Cali Sow iyo Muuse Maxamed Ciise Cabdi Beer Fale Cabdi Aamito ragaas atomay wadiga arkay hees markay dhacayso de inta jeer saxophone ku soo noqonaya organka waxa garaacaya maxamed Macallo waa ninka qoray ka nool sidaan jecelahay bayteriga waxa laga yaabaa inuu goob garaacayo hadii kala basuul cali cawad baa garaacaya ama waxa garaacaya maxaan ku raadayay Cabdalooli baa garaacaya gintaaristayaashu waxa weeye Saciid Harawe iyo maxaan ku raadayay ninkan saaxiib macallin Meysar iyo waa group noocaas marka heestaas waxa looga shaqeeyay si ujeedada loogu ekeysiyo si ay dhaxalgal u noqoto si dhagaha dadka aan weligood iyo Allahooda uga tagin si qurux badan oo miisig wanaagsan oo la isu saaray miisigu oo art waa farshaxan haddii aan imika ka waran hees colaada aan baroordi ka dhigo isgalayaan hees guubaaba haddaan ka dhigo cabasho isma galayaan marka waa miisigii si dadku jeclaadaan loo ekeysiyaa ujeedada oo la waafajiyaa maxaan ku raadayay oo si qurux badan oo loogu sargooya loomana baahna inay kala dheeraadaan marka wax jira heeso badan oo fiican oo heestii beledweyn uu kaga jawaabay Cabdiqays midhahan Cabdikariim wuxuu yiri taa ka fiican laakiin waxay kaga fiicnaatay waa laxanka iyo miisiga oo sida loogu tan ka badan baa loo tumay midna miisig wanaagsan oo mudada dheer maaragtay laga shaqeynayaba ayaa suurta geliyay inuu kaga wanaagsanaado marka anigu fursadan waxa uga faa'iideysanayaa hadraawi inuu ducaynay fankiisa iyo suugaantiisa waan sheegnay dadkuna ay ku wada dheregsan yihiin wadana dhaxal wanaagsan buu uga tagay inaan bulshada u iftiimiyo aan u sheego iyadoo maaragtay iyadoo raalli ka ah in qofkan ay tahay halkan aan ku baahinay qofkii uu jeclaa hadraawi ee heesta u jiray ee runta ahaa halkaa wuxuu noo sheegayaa jacaylkan warba ka haynba inuu qof bini'aadam يعني waxaan laga bogsan inuu yahay uu sheegaya oo boogaan la yani nabar inuu yahay uu sheegaya jacaylka laftiisa macni jacaylku wax adag oo sida birtoo kale ay yahay ma rumaysana been baan u haystay buu leey bari hore laakiin ma waan arkay oo wuxuu dareemay beledweynu markaan ka sifeynaya weligii badarkii uu ka sheekeynaya wixii meesha ka baxay xilli aad u fiican baad waqtigaas barwaaqaha wabiyigi hormar nacmarayo wabiyigi meel hodana oo beer ku fiican beer farashada wuxuu noo sifeeyay amaan buu isku daray inantii reer beledweynaha hadii magaaladiiba imka inta uu gaari doonaa laakiin wuxuu noo sifeynayaa deegaankii uu arkay iyo jacaylkii ku dhacay buu noo soo bilaabay hadii la halku ku arkay buu noo sheegay marka daba wuxuu noo sheegi doonaa qofku arkay
aad muddo yar heestan waxa way xasan aadan wuxuu fanka soo galay 2007kii laba sanadood gudahood wuxuu ku noqday fanaan aad u weyn wuxuu heestan 3 saacadood ka qaaday markii ugu horeysay hanaanka u qaaday bardihii buu qaaday wuxuu qaaday 3 saacadoodkii waxaan ku raadayay riwaayadii wuxuu fursad u helay Yusuf Aadan Xuseen samee isaga ugu horeysay garcadaawiye caashada oo fanaaniinta weyn la metelay Maxamed Sufiya Sooraan iyo ma fahanteen Allah naxariistee baxsaniyo وكان قبل يبغى مركز مكاركين وصي فينا يعني لود قرحي لود مي ورنتي إنه هو بال قري ما كان حوجت بال قريقة معني ده بال قري وأبو ديري ها باركو سيحانيسو وإحنا شيء ذاو أبو ديري تبهد أبو قرح بدي markii bay indhaha ku dhuftay yaa ayuu aad uga hel way gashay burcad bilga hore dumarkeennii hore islaamiya hooyooyinkeen isagaa ka fiican waxaan kala marsada ليسيا فيها تلفزيون سيسو بدليو صدق جاب مش بدليا وخاص وحسوا قرايه مكان محمد عيسى عبد كتوميسو نيك وحتميا بحال يراهدو كورنيتو اوكي وحتميا تروبو ايتويا بير فلاك تاغن وحتميا كالري بحال يرا اسماعيل عبد الجليل iyo maxaan ku raadayay Muuse Maxamed iyo Cabdi Cali Sow waxgarayaan tanoorka weyn qaafka ballaaran oo la isku tiri sidaasa ka sidana quruxda badan ka dhuuba intaas oo bay garaacayaan waxa weeyo macnaheedu jacaylka yani saxophone-ku wuxuu muujinayaa cabashada ama maxaan ku raadayay naxariista codadka baa sameyn kara ayaa ka sheekayna dareenkii lama tubi karayo wax kale lama tumayo mid walba halku ku habay waa la dhigay marka fanka Soomaaliya aad u fiicnaayo fanaaniin aad u wanaagsan oo musician aad u badan hargeysa iyo bulshada oo heer tara ayaa jooga isku bedeli jiray bambar bay joogi jiray mid kasta dhawaaqa looga baahiyo saaraya kan kale ma qulbinayo marka kale waa la isleekaysiin ama waa la isaaray khaafiyad baa la khaafiyad loo sameeyo wixii waxa waraga ku sheegaya waa music loo hogaaminayo orchestra music way isaguna fanaanku inta uu sugayaa uu hortaagay oo la hadlayaa music xagga dambe ka qeybinaya ilaa 10 daqiiqo ay socotaan waa heesaa u dheer heesaa Soomaalida oo yaa horta ka dheer heesaa wadana la leeyahay jiray laakiin kula hadalaa heesihiisa oo dhan waa heesaa la dheer aad u fiican waa beerula waa jawaahir qofkan ka sheekeyn ka beerlo macnaheedu suuq kan isoo beerlo kelmadaas ya beerkiisa waa uu sheegaa beerkeelo waa uu sheegaa de wixii ku dhacay soo kale waa naxay oo maartay bariidadu waxa weeye maxaan ku raadayay waa subxaana ma sakharak yani ilaahay baa ka nasahan maartay xumaan yani ku sameeyay wala yaab yani waa waxa la yaabtid carabta isticmaasha iyadoo waxa ku horeeyay shukr منوفين انت سوي استايتاي وحش كم ودي قفت كشوك تمام مقالي قف مقالي سكتش وجودي لكن دي قف بحقوش ولا حاجه سوي جديد ليش هو حقوق شيء انا يا مشوك بالمتشتي يعني بدل مو كذا سوق بوقتدي معنا بشي يعني كم حسبي لي وانت يعني لونج تايم مو كذا باي ليقوم بشيء سو مشكلة دي إن لا تيجي يدي سو ليش ما فهمت يا سو يا إن قال يصفون بالله وكان إحسان حنا يا وكان سيس عنا يا وكان كوب مارس كوب رأيي يا هالك الجنب وكان ريون يا مود يا لا ما قالوا مركي كان لبلسو وكان سووا سارد أحبر شو كسعودي سووا سارد أحبر شو هايو حكينا الرواية دي ومعلمين يا فنانين رواية أحبر شو يا وعي كان سارد يا واحد baraarujin ka bulshada ku tilmaanta la baxaya wadadka la socday miyaa wadadkii da
socod deegsan maayo min lama tii karo man xanuunsadu ku leeyahay يعني wuxuu jeclaystay inay joogaan amar qofka hadduu la amrayo isagu mala go'aan cabashadiisina muu sheegano waxaa laga yaabaa oran lahaa gabadha martaan jeclaaday fursadiisiya waxaa kaloo la iska harin kharashkiisa wax dhici kara laakiin ilaahay baan qadarin marka taliyahuna وعلي ليره علي ليره سيد أنا على ليره فنان قرير هرجيسة وبونجها تسوي سوي لكن بس يقول الله ما ممكن ما يروح هاتشلا يروح نقول هاتشلا بونجها من هذا مستحف عن عقله ذنه هو جامية لكن لحظة على ليره كلام هذا صار له حركة كسر طبعا على ليره وكان قرير وبريو من على بونجها لو نشريه على الجنة ولا نشريه بونجو توشري من غير بها يعلي قاس وريه هرجيسة هاي فنانين تورط عليه وقت هاي يعلي سؤالي ونوي بها دربوت عندك سواء في عم بها ويا حقيقة صغيرة له وإيش بده شيء بكهست لا وإيش بده شيء ما فهمتي وحاول الصعود كي بين وصل من النساء يا إن كم بحين قال لي صفرين والصعودات كي بين كل شيء النساء يا والصعود إيش قديم ده حكوا على أباك تسمع شو عودك ugu eekaysiyo ujeedada ay dadkuna u sii jeclaanayaan oo ay dhagihiisa u haysan kartaa macnaheedu waxa ku dhacay dhibaato aan jeclayn dee الله qof aan dhibaato duruufta baa ku kaleesha inuu habartabo cabdikariin waa intii waa ugu adkaydo habaar sidan dee habaarkiisan marka habaarkii hooyooyinkoon inaga ay lagu sii qaadi in kaarka u dhacay meel dala ka dhac wixii buu sidaas oo kale aan u soo qaatay buu yiri marka cabdikariin wuxuu ku tilmaamay inay yihiin heesihii uu laxanka saaray kuwii ugu saameynta badnaay hees ka fiican ba bisha saaray oo wanaagsan cabdikariin wuxuu ahaa mulxamiin soo ugu sii waaweyn buu ahaa una fiican kuwa ugu tirada badan oo ahaa muddo dheerna uu soo sameynayay marka mulxamiin aad iyo aad weyn ayuu halaan xalistay imka intii aad waraysiga wadna waxaad sheegtay in muxuu ahaa cabdiqays oo kale hees jawaab u heesta muslimiin maxamed waqaashi balweyn waatay tiiboorka weyn ma ahayn marka muxuu maxay xikmadda ku keenay cabdiqays naftiisu waa de saaxiib ahayn hadraawi iyo cabdiqays marka waxay ahayd meel ka fiican baa jiray ma wasaare aragtidii kaftan u baahnaa kaftan baskeed labana saaxiib walaalaha ahayn marka okay marka ugu dambeyntii heesaha noocan oo kala ah ee qisooyinka noocan oo kala xambaarsan marka laga hadlayo ee ma garanaysaa sida abwaanku beerlo amaanaya dhaqankeeda muxuu ahaayay adna aad ka marakacday inay dabeecadahaasi leedahay jawaahir maxamed oo beerlada marka hees oo beerlo marka heesta lagu magac daray marka maxaa laga baran karaa waad leedahay markaad abwaan hadraawi allah u naxariisto aad eegtid heesihiisa inta badan qisooyin ku saabsanaa waxaa laga baran karaa suugaantiisa aad u sarreysay ilbaxnimada ku dhisnayd ee farshaxnimada ku dhisnayd ee hogol tusaaleynta ku dhisnayd ee sida ugu wanaagsan ee bulshada ugu soo gudbiyaan ugu soo tabinayo si ay wax uga bartaan waxaa laga baran karaa siduu naftiisa runta uga sheegayay wuxuu arkay aan u qarinayn ee uu daacadda u ahaa waxaa laga baran karaa inay tusayaan qof aad iyo aad u wanaagsan inuu allah u naxariisto hadraawi qof aad u wanaagsan buu ahaa waxaan rajaynayaa inuu helay maaragtay sidii halkan loogu jeclaa jacaylkii la mida inuu ka helay ilaahay agtiisa ayaan aad ugu rajaweynay waan waxaan aaminsan qof aad u wanaagsan inuu ahaa aad iyo aad u mahadsan yahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Cali Ahmed oo isagu ila falanqeynay isla markaana ah nin inta badan ka faalooda arrimaha dhinaca fanka iyo suugaanta waxaanu si gaar ah uga hadlaynay heestii uu sameeyay Allah ha u naxariistay abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo jimcihii hore lagu aasay magaalada Hargeysa heestaas oo ahayd beledweyn isla markaana uu ka sheekeynayay qisadaasi sidii ay ku timi gabadhii heesta lafteeda loo qaaday oo uu ma garanaysaa Ibrahim aqoon isu leeyahay iskaranayaan isla markaana uu halkan nooga sharaxayay heestaasi siday ku timi iyo guud ahaanba nuxurka ay xambaarsanayd iyo gabadhaasi waqti halka ku nooshahay iyo sida qisadaas ku timi intaan barnaamijka la mid ku midoono waxaan ka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Ibrahim aad u mahadsan